السلام عليكم maanta waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay Soomaalida ku nool maxay tahay Minnesota okay waad ogtihiin maanta Soomaalida Minnesota ku nool waxa lagu hayo okay kuwii dadkii oo citizenka ahaa oo maaragtay de wadanka dhalashadooda haystay kullu way soo baxeen dadkooda u hadlayeen xaafadda oo la dhaho Cedar waa laga maaragtay ice-kii waa laga eriyay dabaday kaga dhaceen dabaday kaga dhaceen meel fog ayay geeyeen so ta kale oo jirta ma ogtahay way dadkooda warning usmani waxay dhaheen haddaad green card haysatid haddaanad maaragtay dadkan hadda cusubad dee asylumka uu socdo yahay idinka horta gadaal noo joogaa la dhahay waxaa jirto dhalinyarooyin badan oo hadda sharciyada maaragtay buuxsaday oo dee shaqadoodii lagu jiro oo maaragtay dee also wadankan xaq u leh because si legal ay kusoo galeen oo sharciyadoodii maaragtay systemka ayuu ugu jiraa oo maaragtay sidii saxda ahayd ayay usoo marayeen oo asylum ay ahaayeen sax laakiin way baqanayaan guryihii ay joogaan maxay isku qaybiyeen reer Minnesota ii sheeg reer Minnesota waxay isku qaybiyeen in oo hadday gabadhii nurse ahayd ama wiilkii nursingka ahaa ay caawiyaan oo maaragtay xagga caafimaadka laga caawiyo hadday noqoto kuwii cuntada qaar ayaa loo dhigay hadday noqoto kuwii oo maaragtay looyarada ahaa 17 looyar ayaa soo taagay dadkii oo dhahay haba hadlin horta idinka annaga inay idin hadallo waay oo maxay tahay sidii loo ula dhaqman lahaayeen maxay tahay ice soo dhigay meel war Soomaalidan oo Minnesota kuwan waxay lahaayeen kala dira oo kala areas lahaayeen maxay tahay waxa ku dhacday inay isku soo dhawaadaan oo is jeclaadaan oo ay maaragtay wax isla qabtaan alhamdulillah that's a beautiful thing guys okay in the end we all Somalis ethnicity Somali waay so midkeen haddii la soo ataagareeyo kulligeen inaan u damqano waay kulligeen inaan u orodno waay kulligeen inaan u dagaalano waay so Soomaalida Minnesota maxay tahay taasay tuseen okay so kuwii hadda maaragtay oo haddaad looyaradii waxay kula caawinayeen oo kula maaragtay ay digniin dhigaayeen haddii aad tahay dhaheen green card mid hold garaynayo make sure markay ku qabtaan inaad wax su'aal u qaban waa ku dhahdid maadi waday maadi detain garaynay maxay tahay ay dambi maad ugu haysaa majeelkaad geynay okay waayahay intaa kadib waxba ma ku sheegayo ma kula hadlay looyarkayga la hadal okay looyaradii 17 soo baxay telefonadoodii u kala qaybanaya dadka oo la anagana soo wac anaga caawin free no cost okay so kuwa oo maxay tahay ay the citizenka ana they can detain them okay so basically waxay ku dhaheen kuwii horta oo frontiga jooga waa dadkii oo citizenka ahaa oo de isku og passport iyo sharci wax ma lagu dhibayaa ma lagu haraas gareynayaa ma wax lagu geysanaya dibadaabyo yes may ku detain gareyn karaan ka tuuri karaan wadanka no because you citizen right so kuwii oh mark I love it it's so beautiful it is so beautiful say isku caawinayaan guys wiilal iyo gabdhayo waxa jirto oo guryo ku xirxiran oo literally ka baqanayo excited ka qaaday inay dibad u soo baxaan oo dadkii Soomaalida kale oo de maaragtay sharciyada lahayd ama wax maaragtay nursing ahayd ama maxay dhahaan social worker ka ahayd ama lawyers ka ahayd ama dhaqaatiirta ahayd ay u hadlayaan wax lagu farxo waay guys okay you guys have to keep an eye on and listen the stories that are coming out from Minnesota okay I watched this video inaba caadi mahayn xaafadda oo loogu codsiiro eriyeen literally ice-kii ay baxsadeen aan ku dhahay maasha Allah Soomaalida bartaa kaga hayaan ku dhahay I love you guys I am so proud of you Somali Minnesotans you guys are doing an excellent job Soomaalida kale oo ku nool stateada kalena we are so proud of you guys keep up the good job you guys are our examples okay you guys always set the examples for us because madama idinka majority tihiin oo magaalooyinka majority ah Soomaalida kale oo dhan idinka maaragtay ayaa noo jooga meeshaas oo kala maaragtay maamulayo maasha Allah waan idinku indha doogsanaa waan idinku indha diirsanaa keep going aan idinku dhahay love you bye